السلام عليكم صاحبيال كسو دوادا مقال عصوب مقعي وعدنان كانال كأداواني سيدنا دكتور عدنان عبد الله ويلي waxaa ku guda jirnaa muuqaaladii ahaa sidee loo noqdaa dhakhtar wanaagsan iyo calaamadaha lagu garto dhakhtar wanaagsan maanta marka muuqaalkan waxaa uga jawaabaynaa su'aal ay soo weydiiyeen arday badan oo Soomaaliyeed ee barto kulliyada caafimaadka iyo qaybaheeda kala duwan sidee uu noqon karaa dhakhtar wanaagsan runtii waa su'aal adag marka su'aashaas lagu weydiiyo maxaa yeelay haddii qofku weydiiyo sidee uu noqon karaa qof noocaas ah يعني قالوا كل جواب تدرون أدكتهاي بس مقالكم هم كل شيء دونا له قضب ورمتي هذه على مذهب على هاي ولحدث قضب اسكو أركتي إن أتاي دختر ونكسن يو لحدث قضب سيد لو براكتس جري أما يعني لو دبخو كسر دور داوشة المقالكم وكان لحد قضب يقابن أو واحد بيني مقالك فيري لحد قضب يعني إنجليش كوريين لك أصلا جرعنينا قضب كوجه الرئيب هدي أعرفتنا نقطة دكتور ونكسن وحلاقي بها هي أكيسين أم واحد لو يقانو ريزيلينس يعني وحنكودنا فلكسبل إن أنا قلنا كتير كلية عافيماتك كنتي وجالنجين وحير هذا is an aging subject وكلية دقوبة kasoo bilow adoo yara ku soo biiraysa adoo da ah ama qof weyn ah ayaa waxaan noqonaysaa dhakhtarkii heerkii aad rabtay inaad gaartid macnaha kasoo bilow jaamacadda markaa ku biiraysay waxaa galaysaa imtixaan admission yani waa all challenges waaye imtixaan admission aa galaysaa jaamacadda inta ku guda jirtay saddexda sano ugu horeyso ama labada sano ugu horeyso yani systemyada adduunku way kala duwan yihiin laakiin systemkeena Soomaaliya ama Afrika markaa u fiirino saddexda sano ugu horeyso preclinical فيديو هرا ugu soo hadalnay waxa baranaysaa macluumaadkii ugu badnaa inta dhakhtar tahay aku shaqan lahayd ugu adkaa hadana macluumaadkaas hadii waqti fiican ay gelisid yani will be good doctor insha Allah saddex sano ku xigto ama laba sano ku xigto waxa qaadanaysaa medicine qeybihiisa kala duwan ama major medicine wax loo yaqaan kadib waxa maraysaa clerkship iyo internship oo isku xigaan clerkship oo practice gareynaysa maadooyinkii iyo internship sanadka ugu dambeeyay ولقو ديارنا سيدا أكون أقول لك الدكتور لحد سنة مركي كذا ما تحضرنا another challenge أكويا وكعجبها عن كيسي وحاسكو ديارنا يسا licensing examination امتحانكي licensing شقادة أما دكتور نمدي وقولان شيء دكتور نمدي أكو قادم له امتحانكي سجل يسا وهذا امتحان أدقة ودمada adduunku way kala duwan yihiin hadii Mareykanka aad joogtid hadii Ingiriiska aad joogtid wadamada kale Europe wadan walba wuxuu leeyahay wadan hebel license examination weli ma jiro Somali license examination laakiin dawladda Turkiga isbitaalka Digfer waxa laga bilaabay medical license examination hadda inta ogahay Soomaaliya gudaheeda then license examination kaas markaa gashid waxa galaysaa residence program oo idina tababar dhakhtarnimada yani takhasuskii ah residence program kan wuxuu u dhaxeeyaa 4 sano ilaa 7 sano maxaa yeelay takhasuska oo residency markaa ka baxdid oo qayb gaar ah ku takhasusid حقوسي لما واحد يراد fellowship هذا fellowship يعني أنا قوسي تقصد سؤال general surgery أبغى تقلين كجود وحلا يبقى عندنا sub specialty gastrointestinal surgery يعني ودي هاتو residence and fellowship أو time وقتي إذا نه مركب حنقصه كوبينا قلب قوه الرأي إن أكيسي لهاي أو أكيسين كتير إن تاسو step وقتي أصعده قرش أصعده دقدين ويسعطها يعني إن تاسو ويس ده بصعدان كيسي ومهم حيا لسومالي دوحي ترادا دانتادا مقار إيه لو صحدا سوما مقار دمير إيه جنانية ومحسوسة يعني سي أوقات الهدف كاس وأنا كيسي أدقلتي معها قلب كلاد مركو حون غنايا لقبسي وأنا ليلهاي adaptability يعني لقبسي أدق وأنا ليلهاي حيا لي study time كنت أقول جشتد أما جامعة دي أنت لقينيسي وحاجرو maadooyinkii oo badan qaarkood ay adag yihiin waxa ku dheer feeling waa dhacaysa macna exam laga yaabaa inaad noqotid recourse laga yaabaa inaad noqotid ilaahay kuma kaso waxa laga baahan yahay inaad adaptive la qabsatid yani sidee ula qabsanaysaa haddii fail uu kugu yimaado ama aad dhacdid ama aad guul dareysatid inay ku noqoto 10 oo aad 10 ka baratid kadibna aad hor u socotid 10 kaas aad ka baratid inuu noloshaada wax ka bedelo inuu qaabka u fikiraysa qaabka wax u akhrinaysa inuu wax ka bedelo
strategies inaad la imaadid la qabsigaas inaad yeelatid waxaa kaloo la qabsanaysaa waqti badan inaad soo jeedid dhafar badan wax akhris badan maxaa yeelay dhakhtarnimadu waa ogtihiin haddii jaamacadda aad ka baxid xilligii shaqada aad ku biirtid working hours uu dheeryahay waqti badanaad shaqaynaysaa halka dadka kale oo qaybaha kale ka shaqeeya ay iska jiifanayaan saa daraaddeeda waxaa la qabsanaysaa iyadana hurdo la-aan soo jeed habeen inta aad ku guda jirtid clerkshipka iyo internshipka waxaa la qabsanaysaa rotationada ama kala duwanaanshaha qaybaha kala duwan kow waxaa maraysaa qaybta haweenkii waxaa la dhaqmaysaa hooyooyin uur leh hooyo dhali rabto delivery aad samaynaysaa ama dhalmaad samaynaysaa waa ka gudbaysaa waxaa u gudbaysaa qaybta carruurtii la qabsi gaaray u baahan tahay ilmaha kugu oynaayo yani qayl cunuga inta ka oynaayo cunuga inta nafaqdaro ah cunuga shubmooyo cunuga yani carruurtaas iyadana la qabsi kaga baahan yihiin waa ka gudbaysaa qaybta surgeryga u gudbay qaybta surgeryga nolol kalaa ka jirto owtiga markaad tagto waa lagugu qaylinaya waa lagu canaananaya biraa lagu soo tuuraya shouting استراتيجية كاجا بهان تاي إذا والله قبسي وحقول بس قيمة سايكاتريك يعني وحلاقيها بكانة دمر خبينا لا كلنتد وحلاقيها إن حالات بدن وكلدون إن لا نولاتد إن لا كلنتد تاس ولا محي كاجا بهان تاي لقبسي هذه لقبسي جاجا وناكسين هاي و environment والبا لقبسين كرتيد معناه هذا حواي نختار وناكسين أي نقطة دون تا هلا أرينا وكوب بشارينا يا جماعة ما كان يجينا يصير وقتهين بريشر أجرو معلم وكو جودينايا دكتور والبو وكو عاي جوجلينا wuxuu ku leeyahay maadadan hadii saas au soo bixiyeen exam aan noqonaysan imtixaanka ku dhacaysaan kan way oo waxa laga yaabaa in uu deadline jiro maadaama waqtiyeena haysatid deadline ma ku xisaabtamaysa deadline kaas haduu ka dhaco you don't have time waa murugoonaysa waa walwalaysa laakiin markii aad ku soo biirtid residence life-ka ama noloshii takhasuska markaa ku soo biirtid you will be free time يعني مجرو بريشر مجرو دكتور كو عاجي جوجلين كرو مجرو دكتور كعب سنيسد مجرو مجرو ما دا كعب سنيسد مجرتو سي نولل فري تايم اجليسا لكن حقو سو كورداي او لغا باهين ان لا قبستid كو بيشنت كير لابا ريسبونسابيلتي اونرشيب ومحي يعني انا درينتي بوكان ايا او اماداي مركان مجرو معلم كل حسابتمايو ما جرو قف كلها محا مقنعد محا أبسنت نقطي محا كان ما جرو لكن ما بجنب بين كرتين محا المسؤولية أبو سعر بكان حنوصن أيا جعنت هذا كجرو وحلاقة جبها هي دريال وحلاقة جبها هي دوين وحلاقة جبها هي والد نقطة يا والد نقنيسة بكان كاجا يا والد نقنيسة سمر كلو فيريو مسؤولية ويكعلو استاي تيهور أرض يا هيد أبي معلم كاجا جامعة هذا بس أجال جيدين كده لكن تم أبيجي وأقومت لها bukaankaagi uu ilaahayna kugula xisaabtamaayo qodobka saddexaad marka muxuu yahay waa inaad leedahay kalsooni iyo is-hoosaysiin yani maxaa laga wadaa confidence and humbleness waa inaad garabkaaga raaricisaa waa in aad istawaaducisaa yani aan ka wadno in aadan isku malaynin qof aqoon-yahan oo kibirsan oo sanka ka hadlo maahan arrinka noocaas wuu ka duwan yahay waxaa lagaaga baahan yahay in aad noqotid qof dabacsan dadka u naxariista dhagaysta u jilciya u dhimriya hal arrin iska ilaali ardayda intooda badan way ku dhacdaa waxaa loo yaqaano imposter syndrome maxaa waaye yani waxaa is leedahay aqoonta aad leedahay tolow amay dadka kale kaa aqoon badan yihiin waxaa laga yaabaa roundka marka la maraayo inaad aragtid dhakhtar kolligaaga ah ama kaa sarreeyo ama kaa hooseeyo ama isku group aheedeen in waxaadan aqoonin uu soo ridayo macnaha uu ka jawaabayo su'aalo professorka idin weydiin uu ka jawaabayo laga yaabaa adigina aadan aqoonin inaad la yaabtid no imposter syndrome la yiraahdaa mar walba ogsoonow medicine waa maalinta ka dambeyso research soconayo cilmi cusub waa soo baxaya waxaa laga yaabaa saaxiibka inuu soo akhriyay waxaadan adi akhrin waxaa laga yaabaa inuu research shalay soo baxay inuu soo arkay marka ha isdhihin adiga aqoontaada tolow ama liidataa oo laga aqoon badan yahay sidaas ma ahan imposter syndrome la yiraahdaa xaaladaas iska ilaali alxamdulillah aqoon kuugu filan waa leedahay isku kalsoonow kalsoonidaadan iyaysan gaarin kibir haddii laga helo marka kalsooni iyo dhimrin ama garab raaricin macnaheedu waxaa waaye dhakhtar wanaagsan ayaa noqonaysaa ama dhakhtar wanaagsan ayaa tahayba mar walbana qaacido isticmaal maxaa yeelay sida hore ugu soo hadalnay inaad noqotida lagaaga baahan yahay qof flexible ah haddana adaptive ah oo la qabsan karo meeshii maskax adigoo adeegsanaya waxaad suubinaysaa assessment
وقيمين ميل والبا إمادة هدي أي تاي ماشي أكو عصب تاي ريزيدنسي إسبيتال كل جوجو قرية هدا أكو عصب تاي أما ديبارتمنت تيجي أي مادة هدا أكو عصب تاي قيمين كوسامي قيمين مركا كوساميسيد لقبس مركا سميسيدنا سيستم مدرسو عليه نلش على جاركا سيستم مدرسو سيدا ماشي سكولنا ولا نهي assessment adapt and then new system مدرسو عليه استراتيجية مدرسو محايا لي إسبيتال والبو أما institution والبو عالم كجرو وحوليه هاي الشروع لغو دغمو أديقو تحقيرنا الشروع دميش كجرت هذا نوحا لغاية باهن هاي أديقو عقلية كاشنا system أديقو كوغارا your own system وأتكون ولاد محايا لي صح معها إنها ضدك دبرعي صح معها إنها قف كديستي ولو باهن إنها الرول موديل كيلتي ديبارتمنت تيجي قف كوغا أخوان تبرا بروفيسور كوغا ناكسن أديقو قيبتو ناكسن كراعايا ما كقديسانا قولك أفرادنا وحواي إنها نقطة عقلي مسكحيت سنة استعماشي وحلو يقانا emotional intelligence emotional intelligence maxaa ka wadnaa markaan ma ahan tii siyaasadda ma ahan tii dambi baarista balse waa tii dhakhtarnimada waxaa lagaaga baahan yahay emotional intelligence waa in aad bukaankaaga ka abuurtaa wax loo yaqaano trust yani bukaanka inuu ku aamino kalsooni iyo aaminaad bukaankaaga iyo adiga inaad ka abuurtaa maxaa yeelay bukaankaaga oo aad kalsooni iyo aaminaad ka abuurtaa waxay kor u qaadaa wax loo yaqaano patient doctor relationship oo ah bukaanka iyo dhakhtarka xiriirkooda haddii bukaankaaga iyo adiga xiriirkiina uu kor noqdone waxaa wanaagsanaanaya bukaankaaga inuu kuu sheego wax walba waxaa laga yaabaa bukaanka inuu rabo inuu kuu sheego qaybo yani cawradiisa ka mid ah waxyaabo dad kale uusan la wadaagi karin laakiin hadduusan adiga kaa arkin in aad isku furaysid bukaankii dhegaysanaysid waxba kulama wadaagayo saa daraaddeed waxaa loo baahan yahay good listening dhegaysiga wanaagsan inaad bukaanka dhuuqdid macluumaadka uu kula wadaagayo inaad waqti siisid inaad ka dhageysatid sidaa ognahayna waxaa loo yaqaano history taking and physical examination waxay qayb ka yihiin 70% ilaa 80% diagnosiska dhakhtarka wanaagsan ma ahan kan keliya radio diagnosis iyo management way ka ballaaran tahay hawsha intaas maxaa loo baahan yahay bukaankaaga in aad la abuuratid xiriir in aad la abuuratid saaxiibtinimo in aad la abuuratid inuu sheegi karo wax walba bukaankaaga ma ahan keliya in aad ka raadisid diagnosis managementiga aad samayn lahayd iyo inaad ka fikirtid keliya bukaankan maxaad cunto muxuu cunayaa exercise noocoo suubinayaa waxaas oo keliya inaad ka fikirtid ma ahan waxaa loo baahan yahay intaas in ka ballaaran oo ah mar walba ku xisaabtan wax yar oo talooyin ah oo bukaankaaga aad siisid uu dhaqan geliyo ayaa waxay ka wanaagsan tahay bacmadu buuxda oo daawo aad siisid mar walba ku xisaabtan adigoo caqligaaga kaashanayo bukaankaaga inaad la abuuratid xiriir wanaagsan inaad la abuuratid saaxiibtinimo ka dhow dadka kale maxaa yeelay waa ogtihiin medicine markii laga soo tago cilmiga diiniga ah waa meesha labaad ee ugu ajarka iyo xasanaadka badan cilmi la barto sidoo noo sheegay imaamu shaafici allah kala noqday midda kale mar walba ogsoonow qofka xanuunsan hadduu xanuun ku yimaado meesha ugu horeysa ugu laabto waa yaa allah ilaahay oo caafimaadtaan isii meesha labaad oo imaanayna waa dhakhtarkii waaye iyo daryeelihii caafimaadka ahaa qodobka shanaadna maxaa waaye naxariis waxaa loo yaqaana compassion bukaankaaga in aad u muujisid uu kaa dareemo naxariis daryeel hadduu yahay qof weyn ula dhaqan hooyada iyo aabbaha inuu yahay oo kale hadduu yahay qof dhalinyaro ah ama kugu da ah ula dhaqan inuu yahay walaalka ama walaasha oo kale hadduu yahay qof yarne ula dhaqan inuu yahay cunugaaga oo kale sida caadiga ah dadka qaar waxay u dhasheen naxariista waxayna u samaysan yihiin naxariista balse ma ahan wax lala dhasho oo lala weynaado keliya waad practice garayn kartaa haddii aad isku og tahay dabeecad khalifsanaan haddii aad isku og tahay qof buuq badan oo dood badan inaad tahay waxaa loo baahan yahay dhakhtarnimada inay kaa beddesho xaaladahaas oo dhan si aad u noqoto dhakhtar wanaagsan waxaa u baahan tahay marka qof naxariis badan dabacsan dadkan u dhimray inaad noqotid bukaanka u daawey inuu yahay bini aadan keliya ha ka fikirin cudur qaladaadka ay sameeyaan dhakhaatiirta qaar waxaa ka mid ah waxay ka fikiraan disease processka pathophysiology-ga managementiga ay samayn karaan roodkay raacayaan oo keliya taas way ka weyn tahay bukaanka inaad xubnihiisa iyo xanuunada ka jiro inaad daaweysid waxaa ka asalsan inaad u daaweysid qaab cilmi nafsi ah inaad naxariis u kaa dareemo inaad hadallo dabacsan kula hadashid intaas ayaa waxay ka dhigi kartaa bukaankii daawo yaroo laba xaba aad siisid iyo si cilmi nafsi ah u daaweysid ayaa waxay ka dhigi kartaa bukaankii
mid lugihiisa kaga baxo isbitaalka. haddii aad tahay qof title sare leh darajada PhD xataa haddii aad qaadatay macno ma samaynayso hadduu dhaqankaaga uu yahay mid ruud ah oo adag. waxaa u baahan tahay dhaqan dabacsan inaad yeelatid isla markaasna lagu soo ordo macnaha carruurta inay kugu soo cararaan, maamooyinka inay kaa soo agdhowaadaan, dhalinyarada iska badaaba, noocaasaa loo baahan yahay. haddii marka aad naxariis badan tahay ku bishaarayso dhakhtar wanaagsan ay tahay. qodobka lixaad ee ugu dambeeyo wuxuu yahay anshaxa dhakhtarnimada ama anshaxa caafimaadka waxa loo yaqaan medical ethics. runtii anshaxa dhakhtarnimada ama si guud anshaxa shaqada wuu ka weyn yahay wax kale. mawduuc gaar ah uga hadli doonaa insha Allah. waa in aad u barataa, fahamtaa, isla markaasna dhaqan gelisaa anshaxa dhakhtarnimada oo lagu daray diintaadii iyo kitaabka iyo axaadiista nebiga waxay kuu sheegayaan waxaad ku noqon kartaa dhakhtarka ugu wanaagsan adduunka. mid ha ku qaldamin inaad wadatid high score aad kaga soo baxday jaamacaddii, aad kaga baxday license examinationkii, aad kaga baxday residencygii ama PhD-gii, inaad high score kaga soo baxday ma kaa dhigayso inaad tahay dhakhtar wanaagsan. waxaa dhakhtar wanaagsan kaa dhigayo shakhsiyadda aad leedahay adiga. haddii aad tahay shakhsi wanaagsan isla markaasna naxariis badan u dhimriyo dadka, dhagaysto, humble ah, waxaad noqon kartaa dhakhtarka ugu wanaagsan adduunka. intaas ayaa jeclaystay inaan kusoo koobo muuqaalkan oo uga hadlaynay ugu yaraan dhakhtarka wanaagsan calaamadihiisa. waad igala soo xiriiri kartaa qaybta Instagram-ka ama Facebook page aan ku leenahay. insha Allah halkaas wixii su'aalo ah igu soo diri kartaan. aad ugu mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Assalaamu calaykum.